الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimka waxa uu ku tilmaamay inay jiraan dad camaladooda xunxunka inta loo qurxiyey haddana wanaag u arkaa. waa cudurkan ugu xun ee qofka bini'aadamka ku dhaca. adigoo inta xumaan galay wax ilaahay diiday ku dhaqaaqay haddana ku riyaaqsan oo ku faraxsanoo haddana wanaag u sii arkahaya. fara'aahu xasanan, wanaag uu arkaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. qof noocaa ah iyo qof xishooday oo taacada alle ku dadaalay oo diinta islaam ka qaatay oo wixii xun ka fogaaday wixii fiicanna sameeyey isku mid miya? jawaabtu maya ayay markaa noqonaysaa sariigtu. ama xishoodku waa shay qaali ah oo weyn oo ilaahay uu ku manaysto addoonkuu markaa jecel yahay. xishoodku waa qayb weyn oo iimaanka ka mid ah. sidaa darteed ayaa ummaddan waxa ugu horeeya ee laga siibi doono laga qaadi doono xishoodkuu markaa noqonaya. waxaan u jeednaa dumar fara badan oo aan xishoonayn, dhallinyaro fara badan oo xishoodkii ka zuulay, odayaal aan sariiganaynin, carruurta gobol ka mida inay xishoodka iyo sariigta ka tagaan waa wax maanta bulshada iyo mujtamaca ku badan. waa wax maanta noo noqday dhaqan iyo suluug. sariig daradu maanta waa lagu faantamaa, xishood la'aanta maanta waa lagu faantamaa. ilaahay subxaana wa tacaalaana kitaabkiisa xakiimka in badan ayuu ku tilmaamay inay imadu sariigtaan, in xishoodka lagu dadaalo. rasuulku wax badan ayuu fadaa'il badan ku sheegay, wuxuuna ummadda uga digay xishoodka inay ka tagaan, wuxuuna wax badan amray inay sariigta ku dadaalaan. walaalayaal, xishoodka aan dib u soo celino. mujtamaca maanta waan u jeednaa heerka uu ka taagan yahay sariigta. waan u jeednaa maanta meeshaan ku noolnahay meesha laga taagan yahay xishoodka. waxaan wax badan arkaynaa ummaddu inay sariigtii ka tageen. ka bilow masaajidka markaad ka baxdo ilaa reerkaagii gurigaaga aad tagto boqolaal xishood la'aan baad la kulmaysaa. waxaad la kulmaysaa dhaqan sayi oo aad iyo aad u xun. waxaad la kulmaysaa arrimooyin aan wanaagsanayn. dhallinyaradii ayaad arkaysaa bulshada iyo suuqa dhexdiisa wax allaala waxay doonaan inay ku sameeyaan. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ambiyadii hore waxyaabaha laga soo guuriyey oo laga keenay waxaa ka mid ahaa war qof yahow haddaadan xishood lahayn, oodan rabbi ka xishoonayn, oodan malaa'igta ka sariiganayn, oodan bini'aadamka ka xishoonaynin, fasnac maa shi'ta, waxaad doonta sameey. wax allaala waxaad doonta sameey marka la leeyahay ma aha in raalli looga yahay, ma aha in la faray inuu wuxuu doono sameeyo. laakiin haddaadanba sariig lahayn, war haddaadan xishood lahayn, war haddaad tahay qof aan qiimo lahayn oo aan sariiganayn, wax allaala waxaad doonta sameey ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam. wixii nebiyadii hore laga soo minguuriyey ka mid tahay. aan aad iyo aad u dadaalno walaalayaal. aan noqono ummad istaxyi iyo sariig leh. war aan noqono ummad xishoota. calal aqal aan rabbigeen ka xishoona subxaana wa tacaala. war qofku inuu alla ka cabsado masaajidka soo galo oo diin ilaahay uu ku dhaqmo oo salaada hagaajiya sariig alla laga sariigtaa keenta. war qofku inuu xumaan ka fogaado sariig ayaa keeni karta. war qofka in gacantiisa laga ammaan helo
sariig ayaa keeni karta. war dhiig islaameen inaadan ku dhiiranin sariig ayaa keeni karta. in xumaan iyo wax allaala waxa alla diiday aad ka fogaatana xishoodkaa keena. bacdamay xaaladu saa tahaa laga soo minguuriyey oo nebiyadii hore dhaxalkii laga helay waxaa ka mid ahaa warniyow haddaadan sariiganeyn waxaa rabtid samee. orodoo suuqa ku soco. ummadda aad u jeedda inay bulshada xumaynayaan. ummadda aad u jeedda inay sariig la'aan magaalada ku marayaan. dumarka aan arkayna xishood la'aan inay ku socdaan. dumarka iyo hooyooyinka aan u jeedna inay ummadda xamanayaan. muslimiintu dhibayaan. jaarka ay mashaakil gaarsiinayaan. intaasoo dhanba sariig xumaa keenta. aan rabbigeen ka sariigano. rasuulka sallallahu calayhi wasallam nin ayuu arkay nin kale walaalkii ah waaninaya. wuxuuna ka waaninayay sariigta. war weligaa waad xishootaaye naga tag. war sariig badnida manaag baa tahay markaad xishoonayso. aad iyo aad buu u wanaajinayey oo wuxuu ka waaninayey waxa sariigta lagu magacaabo. ileen dad baa sariigta. dad baa ka sariigta gacantooda dumar ajaaniba inay ku musaafaxeeyaan. dadaa waxay ka sariigtaan inay xumaan ku hadlaan. dadaa waxay ka sariigtaan meel alla u diiday in lagu soo arko. dadaa waxay ka sariigtaan meel alla u diiday in laga waayo. wixii buu ka waaninayaa. war xishoodkan iska daa. war sariig badnida adiga mar walba waad isxirxirtaa. mar walba hoos baad fiirisaa. rasuulkaa maqloo yidhi dacahu wardaa ha xishoodee waayo sariigtu iimaankay ka mid tahay. sariigtu xishoodka ah iimaankuu ka mid yahay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. meesha waxaan ka qaadanaynaa walaalayaal meesha aan xishoodka isku waanin lahayn waa layska waaniyaa maanta. heermagaalnimaa loo arkaa oo ay qof allaala qofkaan xishoonin. sariiglaabay ummadda u jecel yihiin. ma xishooda wax kasta ku hadlaa afkiisa la fiiriyaa. midaan sariiganayn oo ummadda nafta u keenay oo dhibaatii mashaakil ma ahe aan islaax iyo wanaag ka shaqaynayn. mufsid ah oo arlada fasahaadinaya kaasaa loo sacbatumaa. kii xishoodoo sariigta. kii xumaanta iska ilaaliya. kii iska maqiiqoo aad iyo aad isaga dhowra waxaa loo arkaa nin herbaadiye ah. waad u jeedaan rasuulka sala allahu calayh wasalam dacahu buu yidhi daa ha sariigtee. war dhaaf ha xishoodee. xishoodku iimaankuu ka mid yahay. xadiid kaluu rasuulku ku tilmaamay iimaanku waa 7 ama 60 qaybood. waxa u fadli badan laa ilaaha ila allah waa kelimada tawxiidka. alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro. waxaan tala saaranaa waa allah. waxaan nafciga iyo daarka keena waa ilaahay. waxaan u nadarna waa allah. waxaan rajayna waa allah. waxaan khoof iyo cabsi u bixinaa waa ilaahay. iimaanka waxaa u sarreeya inaad rabbigaa garato subxaana wa tacaala. awoodda buuxda inuu ilaahay leeyahay. wax dhibi wax anfaca oo dhan inuu allah yahay. waxa ku arsuqaa inuu allah yahay. intaadan dhalanin hooyo caloosheeda waxa kugu maamulayay iyo cidda kugu haysay kugu xanaanaynaysay inuu allah ahaa subxaana wa tacaala. soo saaritaankaaga inuu ilaahay fududeeyey. haddana atwaar iyo heerar inuu alla ku soo marsiiyey. qofku waa inuu xaaladda qalbiga geliyaa. waa iimaanka meesha ugu sarraysa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa ugu hooseeya jidka oo laga qaada wixii dadka dhibaya. inaadan ku tuurin. inaadan u riyaaqin. inaad mar walba ka danqato waxa ummadda markaa dhibaya. waa meesha iimaanka ugu hoosaysa. sariigta iyo xishoodkuna waa shucbi iyo bar iyo qayb iimaanka ka mid ah ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nus iimaankii ka mida naga maqan. qayb badan oo iimaankii naga mida wuu naga maqan yahay. wiilka dukaanka iibiya gabar hadday u timaado xishoodka markaasuu ugu dambeeyaa. midka tagsiilaha ah gabri markay u soo raacday sariig ugu dambeeyaa. midka magaalada marahaya markay la hadashaa xishood ugu dambeeyaa. aan sariigana walaalayaal. aan xishoono oo dad xishood leh aan noqono. sariigta aamus loolama jeedo. sariigtu meel iska fadhiisay gacmaha laaba ma aha laakiin waa khuluq qofka ku bixin kartaa inuu rabbi ka baqo. wuxuu alla u diro sameeyo. wuxuu alla u diidayna ka taga subxaana wa tacaala. waa sariigta qiimaheeda. waa alla ka cabsiga meesha ugu qiimaha badan inaad markaa ku gaarto. maalin buu rasuulku saxaabada ku yidhi war hoy ilaahay ka sariigta. war ilaahay ka xishooda dadow. ilaahay waan ka xishoonaa bay dhaheen yaa rasuul allah. war ilaahay ka xishooda xaqa alxayaa. xishoodkan u
fiican buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. xishoodkan u xaqnimo badan ilaahay ka sariigta subxaana wa tacaala. waxay dhaheen rasuulkii allow maxaa loola jeedaa xaqalxayaa, sariigta tan u xaqnimo badan maxay tahay? rasuulku wuxuu ugu jawaabay waa inaad ilaaliso madaxa iyo waxa ku wareegan. madaxa waxaa ku wareegsan indhihii, waxaa ku wareegsan dhegihii, waxaa ku wareegsan afkii, waxaa ku wareegsan ku dhex jira carabkii. intaa waa inaad ilaalisaa buu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam. waa madaxa iyo waxa ku wareegsan. walbadna wamaa xawaa, caloosha iyo waxa ku gaaf wareegsanna waa inaad ilaalisaa buu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam. caloosha maxaa ku wareegsan? waa laftigeeda. waa inaad xaaraan ku shubin, waa inaad khayrka kula dadaasho, waa inaad mar walba ilaahay wix allaala wuxuu raalli ka yahay aad u isticmaashood geliso. waxaa ku wareegsan farjigii, waa inaad ilaalisaa, waa inaad khayrkiisii wanaaggiisa wixii lagugu talagalay u isticmaashaa. wuxuu rabbi ka xaaraantinimey waa inaad ka fogaataa. intaa haddaad samaysaan allaad ka xishooteen. xishoodkan u xaqnimo badan ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. walaalayaalow xishoodka dib aan u soo celino. war sariigta maantana laga dhex waaye aan rabbi oga baqno. war ummad yahay ummad xishootoo sariigata noqda. war ummad yahay ummad xumaanta ka xishoota noqda. wanaaggaa laga sariigtaa maanta, xumaanta lagama xishoodo. in badan baa loogu talagalay xishoodka in laba loo kala qaybiyo. midna waa inuu qofku sariigto kana xishoodo wax allaala wixii xumaan ah, waa midda layska doonayo. wixii khayra lagama xishoodo, wixii xaq ah lagama xishoodo. inaad cilmi barato adoo qof weyn noqday lagama xishoodo. saa darteed bay Caaisha waxay tiri dumarka ee ansaareed ayagaa u khayr badan dumar marka la fiiriyo. xishoodka ma reebin inay diintooda bartaan, inay diin alla bartaan kama sariiganin. taasaa waxay kaliftay inay xaqa iyo wanaaggii taacada alla bartaan. rasuulka alla intay u yimaadaan qaarkood yay su'aalo kuweenna ka xishooda weydiin jireen. weliba rasuulka sallallahu calayhi wasallam gabar baa u timid oo tiri yaa rasuul allah, ilaahay xaqa kana sariigtee fahal cala almar'ati ghusl, gabadhu ma qubaysanaysaa hadday ixtilaamto? waxay weydiinaysaa su'aal dumarkeennay ka xishoodaan. nin inay gacanta ka qabsatay masaajidka hortiisa la marto sariig lama aha, kama xishoonayso. way u riyaaqsan tahay inay timaaday dhahda dhiig baa iga socda, see looga tahaaro qaataa way ka xishoonaysaa. indha-adkidaa bay leedahay. waxaa miyaad culimmada la hortegaysaa? culimmaday la soo hormaraysaa ayadoo gollan bannaan, way la soo hormaraysaa ayadoo wiil la hasaabaysaa, way soo hormaraysaa ayadoo catarka carfahaya. inay xaq iyo diin baratana waxay leedahay ma waxaanan culimmada la hortegi karaa. gabadhan saxaabiyadda ah reer ansaareeda fiiriya, intay nebiga u timid bay hordhac dhigatay. ay ti rasuulka allow ina allaaha, ilaahay xaqa kama sariigto, ma ka xishoodee fahal cala almar'a, gabadha korkeeda qubays ma yahay hadday ixtilaamtay intay seexato say ragga u riyoodaan ay u riyooto? nebigu wuxuu ugu jawaabay nacam idaa ra'at ilmaa, haa haddii ay biyo aragto. naa naga tag indhaadkidaa ma dhihin sal allahu calayh wasalam, naaxishoo ma dhihin sal allahu calayh wasalam. wuxuu tilmaamayaa waxa ay la timid wax qiimo badan inuu yahay. wuxuu tilmaamayaa uu u caddaynayaa waxay samaysay wax qiimo badan inuu yahay. haa buu dhahay haddii ay biyo aragto way qubaysanaysaa. gabar saxaabiyadoo lagu tilmaamo xaasaska nebiga inay ka mid too meesha fadhisay yaa wejiga intay garbasaarteedii saaratay ay tiri gacmahaaga ha ciidoobaano dumarkii fadfadeexaysaye, naagihii baad ceebaysay bay tiri gacmahaaga ha ciidoobaane. bela ku aragtay bay ula jeedaa. maxaa kaa keenay afkaaga hadalka? naamaa xishoodid bay ula jeedaa. rasuulka tii sheegtay lama hadline tii horortuu hororay uu yidhi adiga gacmahaaga ha ciidoobaano. gabadhu waa runteed, xaqa iyo wanaagga inay barato waa lagama maarmaan. saa darteed buu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam famin ayna yakuunu shubba, xaggee isu ekaashaha ka yimaadaa? rasuulkii allow dumarka miyaa biyo leh? qaar baad riwaayadaha ku daray nacam buu yidhi haa. famin ayna yakuun, xaggee buu ka ahaanayaa shubbaha isu ekaashaha canuga? maxaa loo leeyahay wejiga hooyadii buu wataa, faruurta hooyadii buu u eg yahay, wejigii madaxa hooyadii buu leeyahay. xaaladda xaggay ka timaadaa haddaysan biyo lahayn buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. ina allaha laa yastaxyi an yadriba maalan maa bacuudatan famaa fawqaha, oo waxyaabaan laga sariiganin. markii
markii qur'aanka lagu soo dejiyey ximaar iyo kalb iyo waxyaabo la mid ah ayay dhaheen waa maxay qur'aankan qur'aan lagu tilmaamayo oo dameer iyo eey iyo mtaqaana kaneeca lagu sheegayo caaro markaasuu ilaah soo dejiyey inna allaha laa yastaxyi ilaahay ka xishoon maayo an yadriba maalan maa bacuuda famaa fawqaha inuu ilaahay maal iyo tusaale ka dhigo dhilmaanyihii wixii markaa ka weynba kama xishooday ilaah subxaana wa tacaala wixii noocaas oo kaloo laga xishoon lahaa loogu talagalay inaan laga xishooninna waa ka xishoonaa wixii loogu talagalay in laga xishoodana sariig ma gala maanta oo ummadda dhexdooda waa ku baahsan yahay mijin qaad ahuu magaalada bartameeda ku cunayaa sariig la'aan meeshaasaa waab ugu dhisan tahay sigaar ii u yaalaa taraq iyo wixii lagu shidi lahaa gabdho ay shaah ugu keenaan xishood male waa bannaankaa cad ummad markay meeshaa gaartuu alla alaagaa subxaana wa tacaala war xumaantu intay qarsan tahay oo ummaddu ay xumaanta la xishoonayaan khayr iyo wanaag baa la gaaraa laakiin maalintii bannaanka lala soo baxo maalintii ay noqoto shay mubaax ah maalintii tartan uu galo ilan maanta sariig la'aanta tartan bay maantu tahay dhallinyaradu way ku tartamaan xumaanta dumarku way ku tartamaan xumaanta odayaasha jartii waxyaabaha lamidka way ku tartamaan xaaladaasoo dhan baa waxay keentay in sariigtiina laka rafaco waxay keentay in xishoodkiina laka qaado wixii la xishoon lahaana inaan laga xishoonin wixii loogu talagalay in la sameeyo khayrkii wanaaggana in markaa laga xishoodo qof weyn waa ka sariigana inuu madrasa diiniya aado inuu buug iyo qalin qaato alifka loo bilaabo mada'dan iyo cimrigan anoo ku jira maan dhex fadhiisanaa buu leeyahay meesha ee dhex fadhiisatay aba dumar fujaar ah oo xumaan amahe aan wanaag kuugu wicin oo shaah iyo qaad isku iibiya oo rabbigood inkiray oon salaadna wejiga dhulka dhigin ilaa in yar oo rabbi u naxariistay maahane kuwa lagama xishoonaya miya alifka iyo ba'duu ka xishoonaya faatixada iyo alxamdu buu ka xishoonayaa qul huwa allii wixii lamida inuu bartuu ka sariigana anoo cumrigan jooguu ku leeyahay war cumri kastoo la joogo xumaantaa laga sariigtaa wanaaggana waa la aadaa diin ilaahayaa lagu dhaqmaa awaamirta allah lagu socdaa anoo da'daan jooga maan dugsi aadaya islaam baa ku leh maalinta la yidhaahda kaalay arrinta ha laga sheekeeyey hebel ha laxantana carabkeedu hal mar istaagi maayo maalintay tagtana way ga'laynaysaa suuratu ikhlaas ma aqrin karto iga wad bay leedahay madmadooba allah ku yaqaanee xantana ayadaa ugu horaysa ayadaa mtaqaanaa madax u ah ayadaa qofkii ka xidhanta u furanta xaaladda noocaasa maanta waa waxana dhex yaala waa sariig darada maantana dhex taala waa xishood xumida maanta dhexdeenna ah shaydaan baana noogu wacane ummadii aan xishoono oo ummad sariigata aan noqono wiilasha iyo dhallinyarado xishooda idinkana qof baad arkaysaa iska hadla wax allaala wuxuu doono oo afkiisa soo qabtou ku hadlaa hadalka waa laysku qoraa war qofku wax allaala waxa uu tilmaamo ama uu ku hadlo waa inuu sariigtaa ka xishoon maysid miyaa malaa'igta kiraaman kaatibiin ilaa ku tilmaamay subxaana wa tacaala laga xishoon maayo miyaa raqiib iyo catiid laga xishoon maayo miyaa wax allaala waxa wax naga qora marka xumaan markaan gelayno inaan xishoonaa suuragal ah luqmaan ayaa wiilkiisa waaniyey maandhow wuxuu yidhi haddaad damacdo inaad xumaan samayso cirka fiiri allihii cirkaa goglay oo kor u qaaday oo tiirla'aan taagay ka xisho oo ka sariigo taana ha kugu kalifto wixii aad u socotay xumaana inaad joojiso haddii aad ka hari weysood weli tallaabo sii wado dhulka fiiri aad ku taagan tahay buu yidhi macbuudkii goglay oo alla saa u fidiye ka sariigay ka xisho hana kugu kalifto tallaabaadkaad xumaanta u waday inaad ka soo laabato labadaa haddii xishoodka allaad kaga xishoon weyso xumaan ay kaa reebi weyso naftaada xayawaanka ku tiri dad aad tahay bini aadan ma jire waayo wax qiima uu leeyahay ma laha meesha xumaan waxaa ku sameeya oonan dembi loo haysanin oo waxay doonaan ku sameeya waa xayawaanka annagu waxaan noqonay xayawaan kal ancaam bal hum adal waaba laga sii xumaaday waxay xayawaanku sameeyaan bay bani aadamku bannaanka ku sameeyaan xayawaanka dhadig iyo kalab waxay sameeyaan yaa keena lab iyo keena dhadig bannaanka ay ku samaynayaan gobol ka mid ah saa darteed nafteennu inay xayawaanka ka liidato yuu ilaahay noo tilmaamay subxaana wa tacaala in hum ilaa kal ancaami bal hum adal way ka xun yihiin xayawaankaa wanaagsan oo cad laga helaa oo caano laga
laga helaa oo manaaficaad laga helaa oo haragiisa wax laga sameeyaa, waxna kuma soo kordhina bulshada, waxna uma tarno ilaa fasaad iyo xumaan maahane. waxaan war kasta ku talagalnaa say ummadda u halaagsami lahayd. waxaan mar walba ka shaqaynaa xumaantaan samaynayno iyo sariig la'aanteenna say ummadda cadaabkay u heli lahaayeen. xaaladda noocaasa xaalad wanaagsan ma aha. war aan noqono ummad xishooto aad u sariigataa. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay ka tilmaameen saxaabada inuu ka sariig iyo xishood badnaa gabadha bekarada ah ee ku jirta qidrigeeda iyo meesha ugu dambaysa. qolqolka meesha ugu dambaysay qolka daaqilka ah gabadha ku jirta uu kaga sariig badnaa sallallahu calayhi wasallam. haddii aan ku aragna wax xumaan ah, haddii uu arka dheh wax xumaan ah, wejigiisaan ka fahmi jirnay sallallahu calayhi wasallam. mar allaala markaan u arko wax karaaha ah, waxaan fiicnayn, wax shareecada loogu xadgudbo, wax diinta ilaahay aan ku fiicnayn, wejigiisaa laga fahmi jiray, waa ka xumaan jiray, wejigiisaa doorsoomi jiray. laakiin annagu mar allaala markaan aragna wax shareecada iyo diinta islaamka loogu xadgudbaayo, markaasaa sacabkii qosolka la bilaabaa. waa ummad xishood daro isku kaalmaysaan nahay. ummad waxaan nahay sariig la'aanta ku qaadatay shahaado. waxaan nahay ummad sariig la'aanta midkoodka kale ugu kaalmaynaya. nebiga wejigiisaan ka fahmi jirnay, rasuulka wejigiisa waa doorsoomi jiray sallallahu calayhi wasallam. wax aan fiicnayn hadduu ummadda ku arko, rasuulka wejigiisaa laga garanayay. bedel maa wax fiican markuu arko, wejigiisuu ishraaqi jiray. nebiga waa iftiimi jiray. waxaad moodaa musxafka qur'aanka warqadiisa oo kale, waxaad moodaa dahaba oo kale, waxaad moodaa kaduhni oo kale. xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamaysaa xishoodka qiimaha iyo wanaaguu markaa leeyahay. waxyaabaha laga xishoodo walaalayaal aan ka xishoono, waxyaabaha aan laga xishooninna yaan laga sariiganin. sida maanta aan samayno oo kale yaanan noqonin. aan noqono ummad mar allaala markay cilmiga baranaysana aad iyo aad ugu celcelisaa. rasuulka gabar baa u timid sallallahu calayhi wasallam, yaa rasuul allah bay tiri, seen dhiiggiisaga daahiraa. rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam, khudii waxaad soo qaadataa firsii gobol yar oo suuf ah oo mumasig ahoo la catareeyey, raacraacsii athara dam. keef yaa rasuulallah bay tiri, rasuulka allow see raacraacsii makaanka dam iyo xaydka. yaa rasuulallah kayf, ilaa nebiga intuu ka sariigtay oo kasii jeestay sallallahu calayhi wasallam. intaa maxay u leedahay? waxay rabtaa inay xaq barato, waxay rabtaa inay tahaaro barato, waxay rabtaa inay khayrkii wanaaggii salaadeeda la aqbalo. nebigay ku celcelinaysaa sallallahu calayhi wasallam. ilaa nebiga inta uu ka sariigtay, gabadhii markii celceliska ku badisay uu ka jeestay. caaisha fadhisa meesha waxay tiri, markaan arkay markay isku kadinsan yihiin, intaan soo qabtaan gabadha soo jiiday, agtaydaan u soo jiiday, markaasaan u sharxay barnaamijka uu nebiga ula jeedo sallallahu calayhi wasallam. naa intaas saa yeesho, cagkaas soo qaado oo la catareeyey, meeshaa mari, inta ku nadiifi, saa waxyeel, waa bogsiye bay tiri caaisha radiyallahu tacaala canha. walaalayaalo khayrka iyo wanaagga aan noqono dad aad aad isugu kaalmeeya. sariigta aan aad aad ugu dadaalno. xishoodka qofka ka tagaa khayr oo dhan buu ka tegey. war wax kasta waxa u qiimo badan waa xishoodka. war wuxuu wax ka bilowda waa sariigta. war qofkii inuu xumaan xumeeyo waa sariig baa keentaa, inuu wanaag wanaajiyo sariig baa keentaa, inuu khayrka u degdega sariigtaa keentaa. sidaa darteed xataa dhagaxyada iyo buuraha iyo waxyaabaha lamidka ah, nebigu haafilka ma noqon inuu sariig amro. asaga iyo cumar, abubakar iyo cuthmaan ayaa waxay istaageen jabal uxud baa la yidhi. mar allaala markay jabalkii ku istaageen ayaa jabalkii dhaqdhaqaaqay. rasuulku intuu lugtiisa ku dhuftay bir uthbut yaa uxud alaa tastacyi, ma sariiganaysid miya? iska daa bani aadamkee. dhagxaantuu amrayaa nebiga inay xishoodaan sallallahu calayhi wasallam. xishood ma lihid miya uxudow? nebi baa ku saaran, sidiiq baa ku saaran, laba shahiid baa ku saaran. see u xarakaynaysaa, u dhaqdhaqaaqaysaa? waa buuraheeni. keenii fiicnaabaa maanta xishoonayn, kii diinta lahaa baan sariiganayn, tii xishoodka diinta lahaydee jalbaabkooda taan sariiganayn, kii rabbi ka cabsidiisa lagu tilmaamaye qamiiska wataan xishood lahayn. qof allaala qofkii waayeelkaa baan sariig lahayn, halkaasuu jidka fadhiyaa. markaasaa mid allaala midiisaa u soo martu indhaha la raacaa, koobshaana waa wataa iyo koobushiin, saasuu u fiirinaya. waa qof da'a, waa qof weyn, ma garto maanta xataa waa jimce, bal masaajidka isaga xaro. shaluu fariistay oo khamiis ahayd, arbacuu fariistay, talaaduu fariistay,
fadhiistay ilaa sabti uu fadhiyey intaa waxa uu ku keeni waayey weligiina wax ku keeni maayo sariig darada iyo xishoodkaasi ummaddu maanta ku jiraan mashaakilkaas waa waxaan iska waaninayna walaalayaal waxa aan rabna inaan ka weynaano oo aan darajo kor uga gaarno waa sariig daro waa xishood xumo waa taaca la'aan waa inaan noqono ummad ilaahay ka sariigata subxaana wa tacaala waa inaan noqono ummad xumaanta iyo waxa ilaahay diida ka xishoota waa inaan noqono ummad ilaahay u dhowaata subxaana wa tacaala xishoodku aad iyo aad buu u qiimo badan yahay walaa siyama dumarka naagaha maanta jooga iyo dumarka maanta jooga sariigtii iska dhaafba ayada mar horaaba laga rafaco laga rafacay mar horaa laga qaaday wax yaraa rabbi u naxariisto ku dambeeya ayagiina waxay ku sii socdaanba gabaabsi iyo baaba hadduusan rabbi subxaana wa tacaala u naxariisanin bannaanka u baco dumarku waxay samaynayaan fiiriya kuwa meeshaa shaaha ku gada fiiriya kuwa suuqa fadhiya fiiriya kuwa masaajidka u soo socda fiiriya xaaladaha lagu jiro iyo sida la maraayo waa si aad iyo aad u xun walaalayaal waa si malaa'igtu ay ka murugaysan tahay shaytaankuna uu ku faraxsan yahay waa wax shaytaanka riyaaqiya waa wax muslimiintii wax allaala wixii dhibic iimaanay ku jirta danqisa saa darteed ayaa sariigta dib in loo soo celiya u baahan gabdhaha yaryarkii iskuullada dhigta marka la soo daayay socdaan wax yar gadaashooda soco waxa ay ku hadlayaan waxa ay ka sheekaynayaan waxyaabay ku hadlayaan xadith walaa xaraj waa waxaan laga sheekayn karin waa da'yarista waxa soo baxaya sariig daray ku soo baxaan iskuulay ka soo baxaan ayagaa la sugooyaa ayagaa la rabaa inay mujtamac bedelaan ayagaa la rabaa inay hooyooyin fiican noqdaan waxay ku hadlayaan walaalayaal wallahi san wiilasha qaarkood ku hadli karin wiilasha qaarkood kuma hadlaan wixii gabdhihii xishoodka loogu talagalay inay la yimaadaanay laba jibaaraan ay markaa ku socdaan idan gabaabsi baa la marayaa meel khataraa lagu socdaa ummaddu markii sariigta beeshana waa aakhiru zaman haddii xumaan ay nala fiicnaato fiicnaana uu nala xumaado wixii laga sariigan lahaa haddaan ku xarakoono wixii laga sariigan lahaa oo laga xishoon lahaa haddaan xaraka ahaan u qaadano wixii la rabay in lagu dhexishoodana aan ka tagno xaaladda noocaasa dhibaatii mashaakilay markaa tahay ummaday ummad fiican aan noqono sariigtaa naga dhuntay aan gadaal u soo celino xishoodka aan rabbi uga soo rujucno subxaana wa tacaala sababtu waxay tahay qofku markuu sariigan waysaan soo tilmaannay waa marka uu ku dhaqaaqa wax allaala wuxuu doono xuduudnay markaa celin weyso wargabar qaabanoo dirac qafiifa wadataa timuhu ay bannaanka yaalaan 4,000 oo ruux oo masrax fadhisay waxa inta soo hor istaajiyey ruuxay oo marna saa ay u ruxmayso marna ay saa u ruxmayso marna ay hortooda aadinayso marna ay ka sii jeesanayso maxay tahay waa sariig darro waa xishood xumaan waa xishood la'aan waa ugu yaraan 4,000 oo qof oo rag iyo dumar isugu jira yaa saa u daawanaya qajil ma laha sariig ma laha xishood ma laha calayka cabsi ma leh diin alla ku socosha ma leh xataa intay danqata haba ruxantee haddii la celin waayey haddii ay rabbigeed intay ka xishooto diinta allay ku dhaqaaqi lahayd ay alla uga towba keeni lahayd ay khayr iyo wanaagga samayn lahayd lakaana axsan waa noo fiicnaan lahayd xaaladda noocaasa sariig darraa keenta walaalayaal xishood la'aan ayaa keena waxa aan ku hadlayna aan ka fiirsano waxa aan samaynayna aan ka fiirsano waxaan ku hadaaqayna aan ka fiirsano waxaan dhaqan ka dhiganaynana aan ka fiirsano walaalayaal dadaasay xishood la'aan ugu soo toosaan subaxii suuqa ku yimaada sariig xumo waa ku hergalaanoo way ku laabtaan dawaamkay dib ugu laabtaan way ku soo rawaxaan waa ku seexdaan weli sariig daraa lagu jiraa goormee la xishoonayaa marka goormee sariigtii xishoodu imaanaysaa war qofku markuu xishoodu alla khayr iyo wanaag siiyaa xishoodku shay ma dhex ahaada ilaa waa qurxiyaa zaanah wax lagama qaada ilaa shaanah wuu xumeeyaa war qofka xishood la'aantaa fiiri ummaddu markay kugu qoslayaan oo ay saa kuu fiirinayaan waxaad moodaa in lagu jecel yahay laguma jecle waa lagula yaaban yahay hadalkaagay ku qoslayaan hadalkaagay la yaaban yihiin wax laguu soo fiirinaya doqonkan waa maxay wuxuu ku hadlaya lagu leeyahay ilan xaraf quraan afkaaga kama soo bixin kelimad diina kuma hadaaqin ummadda intaad hor istaagtay ilaahay ka cabsada ma dhihin jidka qashin yaala kama qaadin rabbiga allahu akbar hal mar uma dhihin gacmaha intaad kor u taagatay ilaahu ii dembi dhaaf ma dhihin ma waxaad moodaa marka in lagu jecel yahay maantoo dhan baad xumaan ka sheekaynaysay saasaa la lahaa ii saasaa la sameeyey intay ka dhacday ii saasaan waxyeelay waan haleeyey waan xumeeyey xaaladahaasaad ku hadlaysaa ummaddu way la tacajubayaan aad bay kugula yaaban yihiin waxyaabo fara badan baa jira oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa wanaag iyo khayr laga gaari lahaa haddii rabbi laga
baqi lahaa subxaana wa tacaala. xishoodka walaalayaal waxa aan aad iyo aad isugu waaninayno waa inaan sariig la nimaado. war dadka muslimiintow sariig qiimo badan la yimaada. war dadka muslimiintow ilaahiina ka cabsada. war dadka muslimiintow xishoodka jannada allah lagu helaa. war xishoodka jaceylka nebiga kugu ziyaada. war sariigta aad xumaanta ka sariigato allah kugu jeclaanaya subxaana wa tacaala. wax kale haddaadan samaynayn afkaaga ilaali. haddaadan wax kale samaynayn adinkaaga ilaali. war intaa haddaad samayso ummadda waad ka xishootay, khayr iyo wanaagna waad ku leedahay dhexdooda. mujtamaca waxaa loogu talagalay in sariig lagula dhex noolaado. waxaa loogu talagalay in khayrkii wanaagga lagu dadaalo. laakiin maanta waxa khayrka naseejiyey oo samaha loo waayey waa dumarka sariigtii xishoodka beelay oy wacaladu ku sifoobeen. xaaladda noocaasa way dhibaatada maantana haysataa. waxa mashaakilkee maanta korkeenna saaran ilaahay subxaana wa tacaala haddaan uga towba keenin oo aan sariig iyo xishood is-amrin oon rabbigan subxaana wa tacaala aan ka baryin inuu xishood iyo sariigna siiyo, dhibaato fara badan oo weyn ayaa markaa lagu jiraa. xishoodka wax badan ma ahan. xishoodka waa inaad ilaahay ka baqdaa subxaana wa tacaala. xishoodka waa inaad iska ilaalisaa waxaan alle ma diiday ma sameeya. waa inaad ku dadaashaa waxaan ilaahay ma amray subxaana wa tacaala. war qofka saa sameeyaa xishooday. war qofka khayrkii wanaaggaa sameeyaa xishooday. ilaahay subxaana wa tacaala sariigta dadka gobol ka mid ah khuluq ayuu markaa uga dhigay. wuxuu uga dhigay shay aad iyo aad u muhiimsan. rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ummadayda waxaa ugu naxariis badan abubakar radia allahu canhu. waxaa ugu adag xagga diinka waa cumar radia allahu tacaala canhu. waxaa ugu sariig iyo xishood mudan oo ugu xishood badan waa cuthmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu. nebiga intuu bi'r aris fadhiistay uu mutaqaanaa jilbihiisiisaa u fayday, cumar baa yimid oo sidoo kale yeelay. intaa ka bacdi baa waxaa yimid abubakar aan dhehe, kadib baa cumar yimid, cuthmaan baa yimid oo karkaarkii ceelkaa buuxsamay. dhinacii kale oo meeshaasuu ka soo fadhiistay cuthmaan radia allahu canhu. inkastoo lagu ta'awilo qabrigooda sida loo kala aasi lahaa, haddana rasuulku waa dabooshay baa la yidhi. maxaad u sariigatay? waa inay malaa'igtu ka xishoota buu yidhi cuthmaan radia allahu tacaala canhu. heer wuxuu gaaray malaa'igtu ka sariigato. heer waxaan gaarnay shaydaanka nagu ciyaaro. heer wuxuu gaaray shaydaanku wuxuu raba naga samaysta maanta. sheed wuxuu gaaray gabdheen uu dharka ka dhigo. heer wuxuu gaaray jirkooda ay bedelaan. heer wuxuu gaaray wax allaala waxay doonay magaalada ku sameeyaan. waa ku tallacubay, waa ku ciyaaray. dadka markay dadaaleen bay malaa'igtu ka sariiganaysaa. malaa'igtii baa xishoonaysa walaalayaal. shaydaan xishood laaba ah oo ummadda xumaantooda lee ka shaqeeya oo mar kastaba wax dhibaateeyo halaag geliya. jidkiisaan ku soconaa. waana sariig darrada, waana xishood xumida oo waxyaabaha dhibaatada badan ee maanta ummadda haysataa. ilaahay subxaana wa tacaala qofku mar allaala markuu ka cabsado, si dhabnimona uuga cabsado, ilaahay qalbigiisa xishood buu geliyaa. sariig ayuu ku abuuraa. sariigtaasaa keeni karta marka qislo walba iyo shay walba oo xun inuu qofku ka fogaado kana sariigto. khisladaasa waxay keeni kartaa inuu qofku u degdego wax walbo ilaah subxaana wa tacaala amray. dadaa masaajidka imaashihiisa ka xishooda. dadaa inay salaada tukadaan ka xishooda. dadaa inay kitaab qur-aan qaataan ka xishooda. aan ka xishoonin dumar ajaaniba inay magaalada la maraan, garabka uu ka qabsado, wuxuu doon uu ku sameeyo sida xayawaanka. aan ka xishoonayn meelaha xumaanta inuu ka ciyaaro. aan ka xishoonayn dhala qamra asoo wata inuu ummadda la soo dhex maro. muxuu ka sariigtay? wuxuu ka sariigtay inuu sujuudo. wuxuu ka sariigtay inuu beyt alla soo galo. wuxuu ka xishooday inuu madaraso intuu tago qur-aan barto. wuxuu ka xishooday zay islaamiya inuu labisto. kama sariigan inuu shaydaan gacan siiyo. kama sariigan xumaan iyo waxyaabo kale. qofku markuu meeshaa gaaro waa darajada ugu xun walaalayaal. si ay cadaabka nooga xishooto walaalayaal, aan ilaahay ka xishoono. war aan bani aadamka ka xishoono. war calal aqal qofka xumaanta samaynaya yuusanu arkin inuu wanaag yahay. ummadda waxaa u liita qofka intuu xumaan sameeyo haddana fara'aahu xasanan wanaag u arkaya. laakiin intaad xumaan ku jirtood leedahay allow iska kii cafi, ood in badan danqanayso ood nadaamoonayso, rajaa laga yaabaa qofka inuu leeyahay. waa suuragal inuu ka soo laabto, inay xumaan buu u arkaa. laakiin markay wanaag kula noqoto fiiri, mar allaala markay xumaantii kula noqoto wax wanaagsan, sunnaday bidca kula noqoto, bidcadu ay sunno kula noqoto, xumaantu ay wanaag kula noqoto, wanaagu uu xumaan kula noqdo, waa mashaakil meesha ugu daran uguna ba'an walaalayaal. aan aad iyo aad u soo laabano. nafteena aan ku xakamayna saan u xishoon lahayn. nafteena aan ku adkayna saan u sariigan lahayn. nafteena aan kula dadaalna saan u xishoon lahayn. waa shay muhiim oo markaa loo baahan yahay. waayo waa shucbi iyo bardhan oo markaa iimaanka ka mida walaalayaal. ummadda
muslimiintay uma dadaasha noqda. war haddaan sariigano oon xishood magaalada la marno oo wixii xumaana ay nala xumaato wax badan baa noo hagaagi doona oo noo fiicnaan doona. muslimiintana khayr fara badan bay gaari doonaan. dhallinyarada dhibaatada haysatana allah ka saari doona subxaana wa tacaala. dumarkeenna mashaakilka ku habsadayna ilaahay baa ka bixin doona. laakiin in allaala inta sariig daro lagu socdo, in allaala inta khayrkii wanaagga laga leexanayo, la gaari maayo hadafka iyo ujeeddada fiican ee qofka muslimka uu markaa higsanayo ama uu rabo inuu markaa gaaro. ummaddii hore waxay horumar ku gaareen sariigtooda. war dumarkii hore way xishoonayeen. war dumarkii hore sariig bay lahaayeen. aqaladooday fadhiyeen. hadday suuragal noqoto inay bannaanka soo baxaanna ayagoo istaxiyoo sariig lebay soo bixi jireen. war kuweena maanta say ahaayeen ma ahaan jirin. war kuweena maanta say u hadlaan kuwa ma u hadli jirin. kuweena saanta say u dhaqmaan kuwa uma dhaqmi jirin. kuweena maanta say u shaqaystaan kuwa uma shaqayn jirin. war kuweena maanta say xumaanta iyo waxyaabaha kale ay ugu nugul yihiin uguma nugulaan jirin. wax badan bay sariiganayeen. wax badan bay taacada alla ku dadaalayeen. khayrka iyo wanaagay kula socdeen. nin saxaabi ayaa yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam markuu salaada subax dujinayo nisaa iyo dumar ayaa soo xaadiri jiray. dumarkaasoo murabbitaatahoo ku duuduuban go'ahooda way noqonayeen oo qof allaala qof annaga naga mid ah oo fahmaya markaa ma jirin. waa xijaabka weyn ee jalbaabka ay wataan darteed. xaaladda noocaasaa keeni kartay ama keeni jirtay. qaar baa waxay idhahdeen mugdiga dartii baan loo fahmaynin. say noqotaba go'a waaweyn bay ku duuduubnaayeen. markaasay noqonayeen tagsiga intaysan ka soo degin ama baskaysan ka soo degin yaa 4 tallaabo iyo ka badan markaad u jirto yaad garan kartaa inay hiblaayo tahay. yaad fahmi kartaa xaalkeedii sida uu yahay. xaaladaasoo dhan waa sariig la'aanta, waa xishood darrada, waa dumarkeena waxyaabay markaa ku sifaysan yihiin. dumarow aad u xishooda idinkana. ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga ka barya. sariig haddaad ku dadaashaanna allah idin xafidaaya. haddaad sariig ku dadaali weysaan oo xishoodkii laga tago oo wuxuu rabbi amray la qaadan waayena mashaakil adag baa imaanaya adduunya aakhiro. dumarku wax badan waxaan dhihi lahaa ku dayda gabdhii nebi muuse uu u waraabiyey darka ceelka arigii ay markaa wateen. gabdho sariiganayoo xishoonayay markaa ahaayeen. ilaahayaa ugu markhaati kacay kitaabka qur'aanka dhexdiisa inay ahaayeen gabdho sariig leh, inay ahaayeen dumar xishooda, inay ahaayeen dumar sariigta aad iyo aad ugu dadaala. kitaabka munazalkuu ku tilmaamay nebi muuse imaashaha midood ay u timid. wajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa buu dhahay ilaahay. waxay ku soconaysay sariig bay ku soconaysay oo way xishoonaysay. sariig bay ku socoto waddada geeskeeday maraysay, bartamahay kaa maraan kuweena. sariig bay ku socoto hoos bay fiiriyaan, afartii labaday kugu soo fiirinayaan. sariig bay mataqaanaa ku socoto gacmaheedaa laabnaa, shantay kula soo gelaya kuwa maanta jooga. sariig bay ku socotay waa jaanib walba, dhinac walbay ka sariignayd. sabaayo ilaahay baa kitaabka ku ammaanay subxaana wa tacaala tamshi cala istixyaa. sariig ayay ku socotay. sariigtaa keentay inuu ilaahay kitaabkiisa ku ammaano subxaana wa tacaala. mar allaala markay u tagtay nebi muuse calayhi salaam, mar allaala markay u tagtay hadalkii ugu horreeyey kula hadashay xaajada iyo danta iyo ujeeddada ay u timid bay u sheegtee hasaabii waxyaabo kale lama gelin. inna abii yadcuukay tiri aabbaa kuu wacaaya, adoogay iyo aabbaheeyaa kuu wacaaya. wuxuuna rabaa wax kale ma ahee inuu kaa abaalgudo ee uu kaa siiyo wax allaala wixii abaalgud ah, wixii aad noo qabato wanaag ah. mar allaala markii ay timid isagiina uu yimid waata nebi muuse calayhi salaam uu odaygii amray ama gabadha aabbaheed inuu 10 sano ama 8 sano u shaqeeyo. dumarka gobol ka mida markaad xijaabo dhahda maanta sideena loo guursan bay kugu jawaabaysaa. adoo isdayaco bannaanka isdhigayaa ku raba. qofka asturan ee taacada iyo diinta alla ku dadaala iyo gabadha xijaadka iyo xishoodka badan bay raggu raadiyaan in badan oo ka mid ah. gabadhan way xishoonaysay. xishoodkeeda alla wuxuu ku abaalmariyey nebiyada ka mida inuu guursado. walaalayaal shaydaan kastaad u nugushahay, saa darteed bay wax badan kugu jawaabayaan. haddaan aamusiya i guursan, haddaan mtaqaanaa xijaabtoon isqaqam iska dhigo ya i arkaaya, haddaan saa is yeelo gabadhaa sariigta badan ilaahay subxaana wa tacaala nebiyada ka mid ah yaa qadar
dalkiisa intuu uga soo waday wadankuu deganaa wadankeedii loogu keenay shaqadii qaban jirtay buu qabtay wixii ay samayn jirtay buu sameeyey saa darteed bay afa u noqotay nebi dhan oo ululcasmi markaa ka mid ah nebi dhan oo ilaahay doortay subxaana wa tacaala nebi dhan oo ilaahay la hadlay subxaana wa tacaala maxay ku heshay sariig bay ku heshay waaye isqaawi si lagu arko shaydaan mee qof kale ku arkayo male shaydaan mee insee qof kale ku guursanayo male shaydaan mee wax kale wax ku samaynayo male xaaladda noocaas ku talagal haddaad sariig ka tagto laakiin haddaad sariig iyo xishood istaxyi iyo wanaag khayr iyo taaca ilaa aad ku dadaasho aad asturnaato aad rabbigaa ka baqdo aad diinta ilaahay ku socoto in badan buu ilaahay khayr iyo wanaag ku siin subxaana wa tacaala walaalayaal rag iyo dumar sariigtii maanta waa laga tegay xaqiiqda rag iyo dumar maanta waa la nacay sariigtii waxaana laga tuuray dhabarka gadaashii ilaa loo soo noqdo oo ummad fiican aan noqonana shaytaankii reeryadiisaana saarnaanaysa ilaahay naxariistiisana way naga maqnaan doontaa ilaa aan ilaahay u soo noqono oo nafteenna tagayur ku samayno oon doorino oon bedelno waayo ina allaha laa yugayiru maa biqowm xataa yugayiru maa bianfusihim maxaa kaloo noo dhiman ilmaaga hortooda haddaad sigaar ku cabto waxishoodka kaloo noo dhiman maxaa waaye gurigaagii eelkaaga haddaad qaad ku dhex cuntay maanta waxa kaloo kuu dhiman maxay tahay caagatanoo kalea khamri kugu jira haddii naagtu subaxii ay ka qaada miiska korkiisa oo qashiqubka lagu tuuro canuga yariiskana uu qaado wixii soo haray uu markaa cabo saliig darada noo dhiman maxay tahay walaalayaal xishoodka maanta noo haray muxuu yahay inaan isweydiino waa lagama maarmaan inaan fahamnoon fikirna waa shay muhiim ah waa inaan sariiganaa caruurta laga sariigtaa ehelka laga sariigtaa daarka waa inaan ka sariiganaa waa inaan mujtamaca ka sariiganaa waa inaan ilaah xaqnimo uga xishoono subxaana wa tacaala si ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag aan ugu helno wax walba oo dhibaato keeni kara wax walba oo xumaan ah wax walba oo ilaahay diida aan faraha ka qaadna xishoodka xaaladiisu waa saa haddii lasoo duuduubo waa inaan noqono ummad mar allaala markay xumaan u socdaan xasuusta rabbigood oo ka soo laabta hadday arkaan ayagoo ku dhex jirana tadakaruu fa idaa hum mubsiruun mar allaala markay arkaan inuu shaydaanku dagayna tooba istikfaar la yimaada xishoodka lagu sheegaya sidaa waa ilaan aadami baa layaho xumaan inuu qofku sameeyo ku dhaco nadiif kama aha qofku inuu dembi gala kama nasahna qof macsuum oo nebiyada ahayn ma jiro qofaan khata iyo dembi ku dhacayn ma leh ayadoo saas ay tahaa waxaa la rabaa dembigaagii dembikeenkaaga inuu toobakeenkaaga inuu islahaado isla daba socdo rasuulku ninkuu la dardaarmayay wuxuu ku yidhi ka cabsa meel kastood joogtaba ilaahaaga subxaana wa tacaala xumaan hadday kaa dhacda wanaag raacsii way kaa tirtiraysaaye haddii aad dembi gasho towba raacsii allah kaa nadiifinaaye wa khaaliqi innaas bikhuluqin xasan ummaddana xishood iyo akhlaaq iyo dabeecad fiican markaa kula dhaqan qofka aan xishoodka fiican lahayn oo ummadda aan khuluq fiican kula dhaqmin shayga noocaasa waa shayga ugu xunee sariig darrada karaama darrada iyo dhibka markaa keentaa aad ha loo sariigto walaalayaal qofay xumaantu la fiican tahay qofaa inuu qof dhaco uu jidka istaago isu arkaba khayr iyo wanaag iyo fiicnaan inuu markaa ku jiro kana sariiganaynin war seed ugu dhiiratay waa walaalka seed ugu dhiiratay xoolo jeebkiisa ku jira inaad kala baxdo seed uga xishoon weysay ilaahaaga samada ka arkaya subxaana wa tacaala alladii yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin waa ilaaha kuu jeeda subxaana wa tacaala ma ka xishoonaysid miyaa ilaahay dulqaad badnaa aad iyo aad buu ummadda ugu dulqaataa ilaahay waa alla xaliim oo aad u dul badan subxaana wa tacaala waayo haddii dadka uu ku qaban lahaa waxay kasbadeen maa taraka calaa dahriha min daaba adduunka caawax seexan lahaa ma jiro hal qofood oo mutaystay inuu adduunku baryo male laakiin xilmi ilaah ayaa lagu joogaa kanna waxbuu dhacaa ummad buu dilaa kan ummad buu dhiig ka daadiyaa kan bidci quraafaad buu ku jiraa kan salaadii ilaahay buu ka tegey kan tan waa diin allayba ka fogaatayba tan xumaan iyo fisqi baan laga karin tan waa howladoo waa heesaaya oo salaadba meel lagu tukada ma taqaano tan waa golon bannaanta oo jalbaab ma wadato yaa mutaystay inuu adduunku baryo hal habeen ama hal daqiiqo waxaan ku joognaa walaal waa xilmiga ilaahay dulqaadka ilaahay aan ka faa'iidaysano toobada aan u soo degdegno sariigtii xishoodkaan u soo laabano ummad aad iyo aad ilaahay uga baqda oo taacada alla ku dadaashana aan ahaano intaa haddii la sameeyo walaalaal xishood fiican baan leenahay ilaahayna waa noo naxariisana subxaana wa tacaala sariig darada iyo xumaanaha dhexdeennahada waxaa ka mid ah ikhtilaadka waa isdhexgalka ragga iyo dumarka waa wax aad iyo aad noogu badan meel kastoo aad fiirisaba meel kastoo aad aadaba xaaladdu waa sada ama bas raac ama iskuul tag ama maqaayad tag ama meel waxaa tag
kulli waxaad arkaysaa ikhtilaad guryihii gobol ka mida saaca waa gabdho ajaanib iyo wiilal ajaanib waa la isku dhex jiraa xishoodkiioo tegay la mid tahay walaalayaal waayo xishood baa keenaya inuu qofkan ka qarsoonaado ka xijaabto sariigtaa keenleed inuu ka fogaado xaalad badan oo noocaasa maanta jirta waaba la isla qadeeyaa meelaha gobol ka mid ahba waa ina adeertiis waa ina abtigiis waa ina aayadii waa ina fulaan waxaa kaaga sii daran kuwa jaamacad bay isla dhigan jireen waa isla qadaynayaan isku meel bay ku galeen imtixaanka meel baa la wada fadhiya xaaladahaasoo dhan waa xishood darrada beenkeenna ahaaday dhallinyaro saa ku soo barbaartay oo jaamacad baan isla dhigan jirnay xumaan lagu banaystay oo saasaan isla ahaan jirnay xumaan lagu banaystay waayo mujtamaca maanta dhallinyarada la sugaayo kuwa aan rabna beri inay wax bedelaan oo ay madaxdu bedelaan oo ay khutabo noqdaan oo ay mtaqaanaa xilal qabtaan waa dad noocaas oo kale wax badan walaalayaal ku dadaala sariigtana aad iyo aad ugu dadaala taacada ilaahayna yaan la dhinac marin qof kasta qofka kale intuu ka xishood badan yahay alla waa uga dhow yahay war qof kasta qof kale intuu ka sariig badan yahay waa uga xumaan fog yahay war qof kasta qof kale intuu ka sariig badan yahay waa uga ilaahay dhow yahay subxaana wa tacaala cibaadada xaaladaas aan aad ugu dadaalno oo rabbigeen aan ka baqno oo wax fiican ma aha waxa sariig darrada iyo macaasiyooyinkii xumaayaalka dhexgalkoodee intaan ka xishoon karna aan ka xishoono waa dhici kartaa irbaadiin lagu dhaho waa dhici kartaa dulli in lagu dhaho waa dhici kartaa waxyaabo fara badan in lagugu tilmaamo wax kastaba ha lagugu tilmaamee wax kasta waxaa ka qiimo badan raaligelinta ilaah subxaana wa tacaala waxaa wax kasta ka qiimo badan raaligelinta ilaah subxaana wa tacaala laba wiil oo isla socda laba gabdhood intay ka hor yimaadaan baa mid salaantu ka diidaa midka kalena labadoodu markaa salaamaa markay saa u firyaan baa la dhahaa tartiib intay hoos afka isugu dhigaan kan hirbaadiyo waaye kan waxuu ka og yahay dhaqanka ma jiro kan waxuu yahay markaa ma laha sidaa darteed baa waxaa thar tilmaantaa qof kasta oo bani aadamka ku raaligeliya wax ilaahay ka caroonaya subxaana wa tacaala ilaahay wax uu ka caroonaya bani aadam ku raaligelisay ilaahayna wuu kaa caroonaya bani aadamkii kuu sacbinayna way kaa caroonayaan ma raali noqonayaan qof kasta oo ilaahay ku raaligeliya waxay bani aadamku ka xanaaqayaan wax bani aadamku ay kaaga xumaanayaan oo ay kaaga caroonayaan yaad ilaahay ku raaligelisay ilaahayna raali buu kaa noqdaa ayagana qasab bay raali kaaga noqon doonaan qaacidadaa qaata walaalayaal qof kasta oo bani aadam waxay ku caroonayaan ilaahay ku raaligeliyaa waxaad raadisay waa raadiyaashada ilaahay ha ku caayaano wax kasta ha kugu sheegaano say rabaan ha ku dhahaano ilaahay hadduu raali noqdood raaligelisay qasab bay ku noqonaysaa inay beri ama saa dambe ay raali kaa noqon doonaan haddaadse bani aadam ku raaligeliso wax ilaahay ka xanaaqayo alla ka caroonaya subxaana wa tacaala allana waa kaa caroonayaa shalay kuwii ku ammaanayeyna kow ayagaa caydii dhibaatada kugu bilaabaya bini aadam ma raali noqdaan si kastoo loo raaligeliyo ha raali noqdaana yayna raali noqonin safka ugu horeeya ka dhig inaad ilaahay raaligelisaan subxaana wa tacaala wax walbo ilaahay raali ku noqonaya xishoodka ugu horeeye walaalayaal ku dadaala kuwii shalay saa ku dhahay oo waxa ku lahaa yaa laga yaabaa in ayaga laftigooda ilaahay kuu soo hogaamiya wayna dhacaysaa xaaladaa marka aad aad ha loogu dadaalo sariigta xishoodku waa muhiim war sariigta maanta dib aan u soo celino war xishoodkii maanta laga tegay aan soo noolayno dhallinyarada wiilashay soo nooleeya war khayrka iyo wanaagga ku xarakooda war daacada iyo diinta ilaahay xaraka ka dhigta war wax allaala waxaad ku socotaan ood ku xarakaysaan ood u dhaqaaqdaan ilaahay diinkiisaa noqda subxaana wa tacaala intaa haddaad samaysaan allah micigaaga noqon doona war qof kastoo xumaan ku xarakeeya oo xumaan u dhaqaaqa oo wuxuu ku soconayo xumaan ay noqotana ilaahay agtiisa qiimo iyo wanaag sharaf iyo mudnaan uu ku yeelan doona markaa ma jirto saa darteed sariigta ayaa safka hore wax walba kaga jirta qofku markuu xishooduu xumaan ka tagaa markuu xishooduu xaqa fahmaa markuu xishooduu diinta ku dhaqmaa markuu xishooduu ummadda badbaadiyaa markuu xishooduu xoolahooda faraha ka qaadaa markuu xishooduu dhiigooda ilaaliyaa markuu xishooduu khayrkii wanaagga kula socdaa xaaladda aan samayno ilaahayna aan u soo laabano ummad diinta ilaahay ku dadaashana aan ahaano waayo sariigtu waa shay noocaas waana qayb iimaankaa ka mid haddaan wax badan ku dadaalnana waana laka arki doonaa haddii kalena dhibaataa imaan doontaa sariig darro aakhiru zamanka waxaa la gaari doonaa qomaanta meeshaa lagu aayo ummad inay iska agmaraan ay u noqoto shay caadi oo kale xataa
qof la yaaban in la waayo. xaaladaasaa la gaari doonaa. waxaa la gaari doonaa kitaabulfitan markaad akhriso waxyaabaha uu qorayo aad iyo aad baad ula tacajubaysaa. nin iyo naag xumaan bartamaha magaalada ku samaynaya, dadku iska agmaraan, qofka ugu fiicanna uu dhaho war walaalayaalow halkaa ka kacee gidaarka laabkiisa xataa taga haddaadan xishood iyo waxyaabo kale lahayn. heerkaasaa la gaari doonaa. intaanan gaarin oon xayawaan ka liidanin oonan noqon ummad liidataa, xishoodka aan barano, ilaahayna aanu soo noqono subxaana wa tacaala. wax allaala wixii khayr ee wanaag ahna aan isu kaalmayno, wixii dembi iyo macaasi ahna aan iska hor istaagno. xaaladaasaa ilaahay sharaf iyo khayr nagu siinayaa, mudnaan iyo cizina aan ku gaari doonaa. xishoodku waa la waayey, walaalayaal aan soo celino. saacaddan wixii ka bilowdii beri wixii ka bilowda aan noqono ummad sariigataa. wax badan buu dhumay, si loo soo celiyo waa adag tahee tartiib iyo si aayar xataa aan u soo celino. wiilasha dukaamada gada dhallinyarada ah ee mar allaala markii islaamo ama dumar wax ka iibinayaan xaaladoodu si kala noqoto, calal aqal waxaa la soo tabiyaa oo la wariyaa mar allaala markuu waxa lacagta ahaa ee u soo noqoto uu celinayo, saasuu gacanta u hayaa. muxuu sugayaa? xishood darro. muxuu rabaa? sariig xumo inay intay gacanta soo qaado gacantiisa qabato. xaalad noocaasoo kale ah waxyaabaha suuqa laga soo tabinayo laga soo warinayo oo waxyaabo aad iyo aad u weyn. muxuu bayc mushtarku u barakoobi la'yahay? maxaa khayr iyo wanaagga loo gaari la'yahay? maxaa 24 sac loo dhacaa? maxaa mashaakil iyo dhib keena? waa nadiif la'aanta. saa darteed sariigta xishoodka waa loogu talagalay bayc mushtarka dhexdiisa, waxaa loogu talagalay guriga, waxaa loogu talagalay wadada, waxaa loogu talagalay masaajidka, waxaa loogu talagalay meel walba aan sariigta geyno. walaalayaal xishoodka aan geyno, ummad xishoodtana aan noqono, ilaahayna aan ka baqno subxaana wa tacaala. ilaah xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqna waafajiyo, طاعدي iyo diinta ilaahay inuu nagu sugo subxaana wa tacaala. ummad khayrka iyo wanaagga ku dadaasho sariigta ilaahay hanaga dhigo. dumarkeena sariig Allah ku arsuqo, sariigtii bay ka tageen, ilaahay sariig khayr badan Allah siiyo. annagoo dhan ilaahay kuwa sariigta Allah naga dhigo subxaana wa tacaala. galabtu waa galab jimcooyinka, waqtiyadan dambe waxay ka mid tahay xilliyada aad ducada loo ajiibay. qof kastoo muraadkiisa khayr ilaahay ha u saqiro, ilaahay muraadadiina khayr ilaahay ha idin furo subxaana wa tacaala. dad fara badan oo muraad leh hajire muraadada ilaahay ha u fududeeyo, wax khayrna Allah uga dhigo. rabbi subxaana wa tacaala inta xanuunsan caafimaad taama Allah siiyo, inta dhibaataysan dhibka Allah ka qaado, inta kurbaysan kurbada Allah ka faydo. ilaahu xishoodaan weynee xishoodka nagu arzuq. rabbi xishoodka waxaan ka baryay inuu nagu arzuqo, sida raashinkana loogu arzuqo ilaahay xishoodkan noogu arzuqo. xishood daradan iyo dhibaatadan iyo sumaxumidan nasaaran ilaahay naga qaado. ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ha guuleeyo, meel kastoo ay joogaan khayrkii wanaagga Allah waafajiyo. caruur khayr badan umahada Allah siiyo, intaan haysan inta haysata Allah u barakeeyo, intay ka xanuunsan Allah u caafiyo. ilaahay subxaana wa tacaala diinta islaamka kuwa ku dhaqma rabbi ha naga dhigo. salaadeeni soomankeena ilaahay ha noo aqbalo. ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyarada Allah hanuuniyo, jidka fiicana khayrkii wanaagga Allah waafajiyo. wixii dhibaato iyo shuruur iyo dhibaato iyo waxyaabo kale ummad lagu dhaco lagu dhibi ilaahay ha ka badbaadiyo. ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba saa masaajidkan khayrka ugu kulana Allah noogu kulmiyo, jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha markaa la midka. allahuma aamiin, allahuma aamiin, allahuma aamiin. wabillahi tawfiiq, wallahu aclam.